laakiin waxaa meesha yaalla Soomaalida dhibka u haysta waxa weeyaan qofna waa qayb weyn ayaa la siiyaa qofna lama siiyo aniga hadda kale dowlad ugu weyn madaxweynaha ugu weyn iyo prime ministerka waa fanaankii weynaa ee Cumar Shooli ama hobalkii loogu magac daray madaalihii hobalada Waaberi oo ku xanuunsanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho warbixintan oo ah mid dareen gooni ah xambaarsan waxaan gabi ahaanba ku eegi doonaa xaaladda uu ku sugan yahay mid ka mid ah fanaaniintii ugu caansanaa ee fanka Soomaaliyeed soo mara gaar ahaan hobaladii qaranka ee Waaberi wana fanaanka Cumar Shooli fanaanka weyn ee Cumar Shooli naanistiisuna ay tahay madaalihii hobalada Waaberi ayaa ka mid ah fanaaniinta taariikhda goonida ah ku leh fanka Soomaaliyeed waxaana uu ahaa fanaan codkiisa iyo heesahiisaba ay jeclaayeen bulshada Soomaaliyeed ee berisamaadkii Cumar Shooli ayaa sidoo kale waxaa loogu yeeraa naanays ka duwan tan fanaaniinta kale ee isaga la mid ah ama waqtigiisa soo heesay iyo kuwa hadda jiraba waana naanaysta ah madaalaha hobalada qaranka ee Waaberi taasoo ku muujinaysa dadaalkiisii hagar la'aaneed iyo heerkiisii halka uu bulshada ka gaaray markale macashaqi adalda makuma nuran toqaagu wuxuu rabo balindinba ku galo weligiiday kuma nuran maanta waxa uu ku sugan yahay fanaanka Cumar Shooli mid ka duwan noloshii barisamaad ma jiro wax baashaal iyo boodbood ah waxaana uu dhex jiifaa hospitaal lagu baxnaaninayo caafimaadkiisa inkastoo fanaankan uusan helin qiimihii iyo qadarintii uu filayay haddana fanaanka Cumar Shooli ayaa ka waramaya xaaladda waqtigan uu ku sugan yahay ayagana kule isma arkin oo ayagana ma arkin anigana ma arkin laakiin waxaa meesha yaalla Soomaalida dhibka u haysta waxa weeyaan qofna waa qayb weyn ayaa la siiyaa qofna lama siiyo aniga hadda kale dowlad ugu weyn madaxweynaha ugu weyn iyo prime ministerka ninka la prime ministerka isku xaafadanahay wuxuu ahaa nin ummadda Soomaaliyeed ku weyn waxaana loo keenay isbitaalka dhowr jeer uu yimid wuxuu qabaa cudur sooyaal macnaha yani sokorow cudur u baahan inuu ruuxa la noolaado oo muddo badan oo la dhehaynin cudurkan uu ka reysanayaa hebel waana dadka yani loo baahan yahay in daryeelka gaar ah la siiyo qadarin gaar la siiyo maxaa yeelay wuxuu sumcad balaaran ku dhaxleeyahay ummadda Soomaaliyeed sidoo kale fanaanka Cumar Shooli ama madaalihii hobalada Waaberi oo xaaladiisa caafimaad lagu baxnaaninayo waqtigan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa garbihiisa taagan oo la jooga qaar ka mid ah caruurtiisa kuwaas oo ka warbixiyay xaaladda aabahood uu waqtigani ku sugan yahay waxaana ay sheegeen in si weyn ay ula yaaban yihiin in ilaa iyo haatan mas'uul ka socda dawladda uusan soo booqan xaaladda caafimaad ee halyeyga Cumar Shooli waxaana ay sidoo kale sheegeen in aabahood Ilaahay caafimaad ay uga bariyaan in uu u soo caafimaado waa kuwan iyagoo ka warbixinaya xaaladda aabahood Cumar Shooli aabahay waxa ciyaalkiisa ahayn ma garab taagna maanta wadankan aad iyo aad ugu soo halgamay maantana wax dawlad ka socda aan arkayna ma leh aaban jiriis aad u badatay haddana xaaladiisa waxaan ku sugannahay isbitaalka aadan cadde aan ku sugannahay haddana xaaladiisa waxaa laga deerinayaa dhinaca lugaha waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya oo ugu sareeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish
waxaan leeyahay madaalihii howlada beri Cumar Shooli oo soo halgamay oo inta ku xanuunsan isbitaalka Aadan Cadde waxaan madaxda ka codsanayaa inay soo kormeeraan kaliya ma ahan fanaanka Cumar Shooli dadka magaca weyn ku dhex leh Soomaalida ama sidoo kale dadka barisimaad soo halgamay kuwaas oo waqtigan qiimahoodii iyo qaayihii ay lahaayeen aan helin waxaana jira fanaaniin kale oo caan ah abwaaniin iyo dad kale oo bulshada u soo halgamay kuwaas oo waqtigan ku dayacan gudaha Soomaaliya Cumar Shooli ayaana kamid ah fanaaniinta la iska iloobay waxaa sidoo kale jira fanaaniin kale oo magac leh kuwaas oo ina qiimahoodii la iloobay waxaana kamid ah fanaanka weyn ee Cabdi Tahliil Warsame oo kamid ah fanaaniintii barisamaad ma weelin jiray bulshada Soomaaliyeed